waxyaabaha ugu badan ee dalkeena saameyn ku yeesha ayaa kamid ah abaaraha soo noqnoqda iyo fatahaadaha webiyada oo iyana saameyn ku yeesha dadka iyo dunyada sida beeraha, xoolaha iyo abuurida barakacayaal cusub. waxaana shirka maanta isugu yimaadeen dowladda dhexe, dowlad goboleedyada, bangiga adduunka, midowga Yurub, dowladaha Mareykanka iyo UK oo quseeyay dardargelinta iyo fulinta qorshaha dib u soo kabashada iyo adkeysiga aafooyinka iyadoo lagu saleynayo qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. xubnaha dowlad goboleedyada ayaa iyana soo bandhigay baahiyaha ka jira iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in lagu taageero. sidoo kale waxay ku ammaaneen wasaaradda qorsheynta hogaaminaysa mashruucan sida uu sheegay wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Jubbaland aadan oo xirsi. anagu waxaan haynaa barakacayaasha ugu badan oo wasaaraddeena arrimaha gudaha iyo guddigeena arrinta u xilsaaran ay la dhiilgalayaan ay ka shaqeeyaan oo la tacaalaan. marka waxaanu doonaynaa inaan qoonto taaleeg aan helo. waxaanu soo bandhignay oo aan maanta meesha ka sheegnay in Jubbaland wax soo saarkeeda in wax laga qabto ay la mid tahay in Soomaaliya oo dhan la quudiyo. bacdama laba webi beero iyo bad baan leenahay. Soomaaliyana cuntada ugu badan ay ka soo baxdo labada webi dhaxdooda. Jubbalandna qayb ay ka tahay arrinta iyada ah oo aan nahay koleygii cuntada. marka talooyinna waanu keenay, go'aanana waanu keenay. wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka Jamaal Maxamed Xasan oo wasaaraddiisu ay soo qabanqaabisay ayaa sheegay in barnaamijkan dib u kabashada iyo adkeysiga aafooyinka uu wax badan ka tari doono dhacdooyinka dabiiciga ah ee ku soo laalaabta dalka. markaan fikirnay oo tashanay oo dowlad goboleedeena saaxiibadeena kale caalamka iyo dhammaanteen waxaanu soo bandhignay oo keenay qorshe aan rabno inaan uga baxno dhibaatooyinkaas haddii dhacaan aan uga adkaysano. sababta waxaa la socotaan waddanka marka roob ka da'o webiyadu waa fatahayaan, khasaare badan baa meelaha qaarkood ka dhaca. marka roob la waayana abaaraa dhaca, khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha dadka iyo dhinacba isugu jirana way dhacaan. marka waxaan rabnaa bal sida aan u maamuli lahayn haddii aan roob helana ilaahay naxariisteena siiyana sida ugu wanaagsan uga faa'iideysan lahayn, haddii abaar timaadana sida aan ugu adkeysan lahayn. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo furay shirka waxa uu sheegay haddii qorshahan sidii loogu talagalay loo qabto oo wax badan ku soo kordhin karo dalka. waxaan isleeyahay shirkan muhiimadiisu waxa weeyaan see loo abuuri karaa u adkeysiga, seebaa looga gaashaaman karaa, sidee biyaha loo maamuli karaa hadday biyo roob tahay oo sida ay u socdaan badweynta gelaya iyo hadday tahay webiga fatahaya see loo maamuli karaa, looga shaqayn karaa. arrintaas waxay u baahan tahay dhaqaale iyo qorshe. waxaan isleeyahay qorshahan maanta loo fadhiyo oo afka qalaad RRF la yidhaa ay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale soo bandhigeen in ay wax badan ka tari doonaan haddii ku talagalkiisa iyo dhaqaalihiisaba la helo in dadka Soomaalidu xoolo dhaqato miyi iyo magaalaba ay u adkeysan karaan. wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa 3 sano la soo dhaafay waday barnaamijkan dib u kabashada iyo adkeysiga aafooyinka si loo sameeyo kobac dhaqaale oo ku filan dalka marka ay dhacaan dhibaatooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha oo u baahan in loo sameeyo qorshe looga hortago. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.